ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland oo ku sugan buuraha silsilada Goolis ayaa ka godoodsan mushaar la'aan baahsan oo ku dhacday ciidamadaasi. Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya askar ka tirsan ciidamada Puntland oo ku sugan buuraha Goolis oo ka cabanaya mushaar la'aan isla markaana sheegaya inay godoodsan yihiin. Sargaal ka dhex muuqday muuqaal ay iska duubeen ciidamada godoodsan ayaa sheegay in ciidanka godoodsan ay yihiin ururka toddobaad ee ciidamada daraawiishta Puntland ee ku sugan silsilada Goolis, isagoo madaxda dowladda ka codsaday in ciidanka la siiyo xuquuqdooda ay xaq u leeyihiin. Waxaanu nahay ururka toddobaad ee ciidamada daraawiishta Puntland oo ku sugan buuraha silsilada Goolis. Waxaan doonaynaa inaan ogeysiino mas'uuliyiinta dowladda Puntland in aanan helin xuquuqdii aan lahayn innaga oo ku jirna difaaca dalka, ayuu yiri sargaal ka dhex muuqday muuqaal ay iska duubeen ciidamo ka careysan mushaar la'aan. Gadoodka ciidamada kala duwan ee ka cabanaya mushaar la'aanta ayaa muddooyinkii dambe ku soo noqnoqday deegaanada Puntland, kuwaasi oo qaarkood meelo xirtay inkastoo markii dambe laga waday. Dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamo ka cabanaya mushaar la'aan ay xirteen saldhigga caasimadda Puntland ee magaalada Garowe, taasi oo dadaal la sameeyay lagu dejiyay xaaladda. Mar kale dhacdo kale oo sidaas oo kale ah ayaa ka dhacday magaalada Boosaaso, oo ciidamo kale ayaa iyaguna sidaasi oo kale xiray isku socodkii magaalada Boosaaso, kuwaasi oo sheegaya in aysan helin xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen. Saraakiisha Puntland ayaa qaarkood sheegay inay la kulmeen mas'uuliyiin ka socday dowladda Puntland, kuwaasi oo sheegay in la siin doono xuquuqda mushaarkooda, laakiinse lama oofin ballantaasi oo been ayaa loo sheegay. Sargaal ka tirsan ciidamada Puntland ayaa sheegay in wax walba ay uga daran tahay ballanta beenta ah oo ay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ay u sheegaan, kuwaasi oo xaaladda ciidamada uga sii dara. Carada iyo gadoodka ay wadaan ciidamada Puntland ayaa ku soo badanaya deegaanada ay maamusho Puntland, kuwaasi oo ay ciidamadu maalinba meel ay ka sameynayaan gadood. Waxgaradka Puntland ayaa ugu baaqay in madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdulaahi Dani uu si dhaqso leh u bixiyo xuquuqda ka maqan ciidanka Puntland ee difaaca ku jira. Waxaa laga digayaa in xaaladda ciidamada Puntland ay sii xumaan karto haddii aysan helin xuquuqdooda oo ah mushaarka ka maqan dhowrka bilood.